Soomaali waa ereyada fanaanka weyn ee Bashiir Cali Xuseen iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo oo soo qabanqaabiya xaflad aad iyo aad u qurux badan oo loogu talagalay guwaabo iyo taageero dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoon-yahano, cuqaalo iyo salaadiin iyo bulshada rayidka inteeda kaleeto. gabagabada barnaamijka ayaa wax ka weydiinay Soomaalida ka soo qayb gashay xafladan aadka u quruxda badan ee lagu taageerayo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa waa tilaabo wanaagsan. Norway shacabka Norway waaga hore aad bay dowladda u taageeri jireen, haata mid hadda jirta haata mid maxay ahayd tan ka sii horeysay. waa dad dowlad wanaaga Soomaalida jecel, runtii taageerada ugu badan gaarsiiya Norway. Soomaalideeda iyo dowladda Norway labadaba waxay mataqaanaaba dowladda Soomaaliya u taageeraan si hagar la'aan iyo si mataqaanaaba kala maxay ahayd har la'aan. marka insha Allah maxay ahayd isku imaadka maanta dadku isku imaadeen waxay tusaysaa haddana wacyiga hadda wadanka ka jira inay taageersan yihiin. السلام عليكم. ما شاء الله أنا وحنو أركا جوابين iyo maaragtay in jaceylka aan u qabno wadankeena aan muujinayno maxaan ku sheegay oo u baahanahay sidaan si ka badan inaan u soo wada banaan oo aan taageerno dalkeena iyo wadankeena si ay maaragtay wanaageena iyo farxadaan wadankeena u qabnaan dadka u muujino. aad ayaad u masantahay Somali National TV. runtii kulankan maanta wuxuu ahaa mid Soomaalida Norway oo isla degan gaar ahaan hareeraheeda ay direen fariin ku saabsan sida ay dawladda Soomaaliya u taageersan yihiin iyo sida ay qarannimada Soomaaliya u taageersan yihiin. waxaa laga dooday muhiimadda ay leedahay in dawladnimada la wada ilaaliyo, in muxaafad iyo mucaaradba macnaha dawladnimada iyo qarannimada isku si loo fahmo si geediga mataqaanaa horumarka ee Soomaaliya uu gaaro meesha la higsanayo. halkan waxaan uga diraynaa baaq yar anagoo ku hadlaya tiimka magaciisa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiiradiisaba. waxaa loo baahan yahay dulqaad dheeri ah inaad muujisaan xildhibaanada ayagana maxaan ku iraahdaa mooshinka wada amaba maxaan ku iraahdaa ka soo horjeeda dawladda. waxaan leenahay war isqabqabsasho waxba ma tarto, wax walba waxay ku wanaagsan yihiin in maxaan ku iraahdaa la hagaajiyo oo aad wada ogaataan dalkeena quruxdiisa wuxuu ku jiraa gacmaha oo aad is haysataan. caawa buraanbaradii aan ugu soo talagalnay waqtiga oo nagu yar dartiisa aan laga soo jeedin halkan, laakiin xafladda dambe oo la qaban doono insha Allah baan soo gelin doonaa haddii Ilaah raali ka dhigo. ninkii wax tabanahayo ha yimaado miiska wada hadalka. qaran dumis waxba ma taro. xaflad aad iyo aad u qurux badan oo ay ku soo diyaariyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway. xafladani ayaa iskugu jirtay gubaabo iyo taageero lagu taageerayay dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waa anigoo ah Maxamed Cabdi Axmed Maye Mooge. halka aad ka daawanaysaana waa raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Oslo, dalka Norway.